bismillaah murtida iyo gabayga suugaantaanoon ka taagin murtida iyo gabayga suugaantaanoon ka taagin anoo magacayga muujinaya meel walbaaba anoo magacahayga muujinaya meel walbaabo anoo ka dhex muuqda bulshadayda magaca dheer anoo ka dhex muuqda bulshadayda magaca dheer waxaan ku maamuusay gabaygayga maanta yaal waxaan ku maamuusay gabaygayga maanta yaal muqdisho barkeedii baan baaqu dirahayaa muqdisho barkeedii baan baaqu dirahayaa cadcadka baadiicada nimaankii baawirka cadcadka baadiicada maqaawiirti reer tolkey cadcadka baadiicada maqaawiirti reer tolkey dadoo barwaaqa heystabaan baaqu dirahayaa dad barwaaqa heystabaan baaqu dirahayaa dadkii nabadahan jeclaa baanu baaqayaa dadkii nabadahan jeclaa baanu baaqayaa maqaamka muqdisho hooya madaashaan raggii lahaa maqaamka muqdisho hooya madaashaan raggii lahaa allow barakeeya meeshay u badan yihiin anigoo ku hadlaya codka arrimaha bulshada waxaan soo dhaweynayaa hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo in uu yeesho maqaam gobolka banaadir waa arin lagu farxo anagoo ah maxay aheeday dadka dega gobolka banaadir mana nihin dadka 991 imaaday waxaan nahay 600 dadkii joogay ilaa waagaas markuu ahaa suuqa ceelgaab ama Siinaay dadkii dukaamada ku lahaa bacadlaha weyne xamar weyne ilaa hadda lambaradoodii iyo ay noo leeyihiin dadkii intaas canshuurta laga qaadayay ee wax ku baranayay dadkii xilligaas ku dhashtay ilmo ku dhalay ilmahoodii ilmo kale ku sii dhalay waxaan ka mid nahay saraha xamar weyne ku yaala ee caanaha geela lagu dhisay dadka leh aan ka mid nahay lixdameeyadii ama kontomeeyadii degmada Boondheer oo hadda aniga aan ku noolahay waxa gudoomiye ka ahayd gabar beesha baadacada oo la ogyahay taariikhda way qoran tahay lama iloobaan waaye dad baa ku doodaayo anoo 7 sano jira la keenay anigoo maxayda dhowr 10 jir ahan meeshan wax barasho maada ilmaha ku dhalay dadkii ku dhashay ilmo ku dhalay ilmoodii ilmo ku sii dhalay joogo ilaa waqtigaasna canshuur laga qaaday dawladda dadka ay ku tiirsan tahay ee 99% canshuurta laga qaadan ka midnahay waxaan nahay beel nabdood aan hadlin afgaaban beelaha Soomaaliya dadka aan dhibaatooyin aan u geysanin wadanka Soomaaliya aan dambi ka galinaanahay hore Soomaali waxay u tiri ninaan hadlin hooyadiis wax ma siiso markaan aragnay Soomaalida siday u hadlayso iyo siday wax u kala boobayso iyo dadka xaq ku leh ee wadanka ilaaliyay ee shuruucda ilaaliyay ee dirisnimada ilaaliyay ee aamusay in aan bal la fiirinaynin waxaan go'aansanay annagana inaan afka furanoon hadalno marka waxaan leenahay maanta waxaan baaq u dirayaa xildhibaanada sharafta leh ee nagu matala kuraasta ee Soomaaliyeed inaad maanta u kala kicin aad ansixisaan in uu yeesho maqaam gobolka banaadir loo dhan yahay qof walba iska dhex arki karo annagana waxaan rabnaa labada beelood ee mar walba lagu soo celceliyo beelaha banaadiriga iyo mudulood qofka saddexaadana qabiilada saddexaadana nahay canshuurta laga qaado hantida noo dhex taalo suuqa weyn ee lambar 1 ka ah Muqdisho Bakaaro haddaan been iska ilaaliyo lambar 1 ka nahay waxaan nahay dad ganacsade oo caan ah oo la yaqaano maraakiib noo soo degto doomana noo soo dego dhalinyaro fara badan oo wax baratay wadankan joogto guriyaan ku leenoo canshuur laga qaadaa marka anaga waxaan leenahay in xuquuqdeeni la duufinin in markay ugu yar tahay in 17 15 oo yeesha gobolka banaadir